السلام عليكم. عشر كينا سدحات basic trignometry. اوكي ظهران يقول شيء لا يستطيعين عن الدهاي سورجيتك حاو قيبنا هيب لابو كوساين عن الدهاي درسك وحاو قيبنا هيب سدح تانجنت وحاو دهاي كسورجيتك وحاو قيبنا درسك. اوكي example waxaa haysata saddex geeskan waxaa haysata xagashan aan dhahno 30 intana aan dhahno 60. okay kasoo qaad xagashaas haysataa waxaa rabtaa inaa heshidtan hoosh nii fudee. okay xagashaan haysataa 30 waxaa rabtaa inaa kan heshid maxaa isticmaale ma waxaa isticmaale sin ma waxaa isticmaale cosine ma waxaa isticmaale tangent hoos dheh ka fikir. okay inaa ka fikirtaa u malaynaa haddaa fiirisid inta okay information maqan okay fikraal noqda mar labaad baa dhaha ka shaqeey fiiri saddexdan waxaa isticmaalaysa inta wuxuu ahay sin haddaa fiirisid kasoo horjeedka waxaa u qaybinaya hib marka kasoo horjeedka waa x okay waxaa u qaybinaya hib ma ogi inta kam isticmaalayo cosine deriska ku qoran waxaa u qaybinaya hib deriska waa 4 waxaa u qaybinaya hib inteta ma ogi tangent kasoo horjeedka waxaa u qaybinaya deriska kasoo horjeedka waa x waxaa u qaybinaa deriska oo 4. okay tanaan ugu habboon inaan ka shaqeyno. okay marka waxaan dhahaynaa tangent oo 30 degree lamidta kasoo horjeedka waa x waxaa u qaybinaa 4 aa labada gees ku dhufanaya equationka caadiga xalinaya marka 4 lagu dhuftay tangent oo 30 degree oo lamid ah x x waxay lamid tahay markaas haddaa calculatorkan isticmaalno tangent waa u jeediin waa inta 30 oo tangent waxaa ku dhufanaa 4 waxaa isoo baxay 2.3 2.3 iska dheh 2.3 waxay rabtaa noqoto mitir sentimitir milimeter. example labaad bal isku day adiga inaad ka shaqaysid intaas 90 degree waxaa haysataa inta oo 60 waxaa ogtaha geeska waxaa ku dhahay waxaa heshaa geeska ma waxaa isticmaale sin ma waxaa isticmaale cosine ama tangent saddexdooda mid sheeg okay
waxaan u malaynaa inaan ka shaqaysay marka inaan ogaano waaye sin waxaa xasuusataa inaan dhahay kasoo horjeedka xagashan waa 4 waxaa u qaybinaa hib oo x cosgeeskan dheer waa hypotenuse x cosine waxa waaye deriska waxbaa ugu jeeda waa may waxaa u qaybinaa hib oo x kasoo horjeedka waa 4 tangent deriska waxba uguma jeedo okay tan keliya oo nagu habboon ama noo fiican waa sine inta kale waa birta okay markaa ka shaqeyno waxaa haysanaa sine oo 60 degree ah waxa waaye waa 4 loo qeybiye x waa kasoo horjeedka loo qeybiye hypotenuse x aa labada gees ku dhufanaa saa u xaliyo x sine oo 60 degree ah oo lamid ah 4 sine oo 60 degree ah labada gees u qaybinaa x waxay la mid tahay 4 loo qeybiyey sine oo 60 degree ah calculatorkayga la soo baxa insha Allah waa kana sine oo 60 degree ah meeqa waaye waa eber dhibic 86 okay 4 waxaa u qaybinaa eber dhibic 86 jawaabta waxa waaye 4.65 jawaabta waxaa soo baxay 4.65 waxay rabtaa noqoto ma mitir millimeter centimeter decimeter waxay rabtaa noqoto okay jawaabta okay hadda problem ka duwan aan siinaa hadda waxaa rabnaa inaan helno xagasha waxaa haysataa geeskan waxaa ku dhahay waxaa ogtahay inta waxaan ku dhahay waxaa rabaa xagashaas meeqo okay labadan geesaan ogtahay xagashaasaa ku helo idinkani weydiina ma sine aa isticmaalaa ma cosine aa isticmaalaa ma tangent aa isticmaalaa adigoo isticmaalayo qaacidadan aa meesha ku qoran okay hoos dheh fiiri xagasha ku heli okay waxaa umalaynaa inaan ka shaqaystay haddaa fiirisid sine waxaan dhahay kasoo horjeedka waxaa u qaybinaya hib kasoo horjeedka waa 4 hypotenuska waxba kuma qornayn okay isticmaalaya cosine waa deriska 3 waaye okay hypotenuska waxba kuma qorno kama isticmaalo tangent waxaan dhahay kasoo horjeedka waa 4 waxaa u qaybinaya deriska oo 3 oo kana isticmaalaya marka se xagasha ku helaynaa waa su-aasha waxaa haysataa tangent x oo lamida 4 loo qeybiye 3 marka x maxay la mid tahay x waxay la mid tahay labada geesaa waxaa gelinaya inverse tangent negative aa kor ka saare oo tangent x ah inverse tangent 4 loo qeybiye 3 macallimiinta qaarkooda saanay u qoraan arctan x
إن كوريوس أنا سانة أقرأ marka haddaad saan u qortid labadan isku baxe x keliya inta kugu soo heraa marka inverse tangent haddaa isku dayo inaan calculatorkan isticmaalo inuu leeyahay u maleynayo inuu leeyahay okay waaye marka adi jawaabta waxaa haddaa calculatorka geshid waxaa dhehe tangent oo dhibic korkaas ugu taalo negative 1 afar loo qaybiyo 3 waxaa kuu soo baxayo marka calculatorka isticmaashid waxaa kuu soo baxayo 53 dhibic 13 degree marka waxay ka dhigantaa xagashaas waxaa waaye 53 dhibic 13 okay example-ka ugu dambeeya bal isku daya inaad ka shaqaysin waxaa haysataa saddex geeska bedela waxaa haysataa okay waxaa rabtaa inaad heshid xagashaas intaa ogtaho 5 intaa ogtaho 4 marka ogow markaa xagasha rabti inaad heshid laba information inaad ogaatid laba gees inaad ogtaho ama markaas ma heli karta xagasha okay saa ugu shaqey lahayd ma wax hadda waxaa laga rabaa waxaa isticmaalnay ma waxaa isticmaalnaa sin ma waxaa isticmaalnaa cosine ma waxaa isticmaalnaa tangent okay fikir ka shaqey okay waa ka shaqeysaa u malaynaa haddaa fiirisid sin xagashaasaa rabnaa inaan helno sin waxa waa kasoo horjeedka waxba kuma qorno waxaa u qaybinaya hypotenuska oo 5 kama isticmaalin cosine dariska oo 4 waxaa u qaybinaya hypotenuska oo 5 tangent kasoo horjeedka waxaa waxba maaha waxba kuma qorno waxaa u qaybinaya 4 okay kan keliya isticmaalayna waa cosine marka waxaa dhehe cosine xagasha waa x ma ogid waa 4 dariska loo qaybiya hypotenuska okay waxaa dhehe cos inverse of cos x lamid yahay cos inverse of 4 loo qaybiyo 5 marka labadan way iscunayaan x keliya ku soo helaan jawaabtaa waxay noqon doontaa markaas 4 loo qaybiyo 5 marka calculatorka isticmaalo waxaa ku soo baxa 36.87 jawaabtaa waxay tahay 36.87 jawaabta halaana ku ekeenayna aada u dheereey videoga bilaa tawfiiq